السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكي نص عن جري مسا aan uga hadli jiray arrimaha caafimaadka gaar ahaan maalmahan cudurka taagan keewii cudurkan la yiraahdo coronavirus ay dhahaan covid-19 waa cudur halis ah saan ka warhay cudurkan looma baahna in aad jareysato looma baahna in aad ciyaar aad ka dhigato cudurkan waa cudur dilaa ah oo u baahan in aad qaadato awaamiirta ay bixiyaan dhakhaatiirta ama dowladaha laamaheeda kala duwan ay bixiyaan inaad qaadato ayaa waajib kuga ah waa in aad badbaadisaa nafsadaada iyo tan ummadda kula nool maxaa saas u leeyahay haddaad soo qaado adiga cudurkaas oo adigna ciyaar aad ka dhiganaysay waxaad gaarsiin kartaa malaayiin qof kale waayo cudurkan waxaa la sheegay in aad u faafay waan u faafayo waayo maalmo yar gudihiisa ayuu wuxuu gaaray dad oo wuxuu bilooyin yar oo wuxuu galaafsaday dad ilaa 1 milyan qof ah fadlan awaamirta la bixinayo ayaa waxaa ka mid ah in aad ilaaliso nadaafadda aad ku dadaasho gaar ahaan saacad walba inaad gacmahaada aad u nadiifiso oo aadna iska ilaaliso meelaha qaar inaad taabato aad ka warhaynin tusaale ahaan meel waxa ayaa wadada maraysa mise derbi maraysa inaad geed oo wadada ka yaalo mise derbi meel oo inaad taabato iska ilaali in aad jaranjarada mise maxallaay aad soo maraysa inaad taabato iska ilaali waa taabatay maxaan samayn karnaa haddaan soo taabano meelaha qaar ah waxaan samayn karnaa in aan gacmahan ka ilaalino wejiga dhammaan wejigaada inaad ka ilaaliso gacmahaada oo aad la soo martay meel aad u fara badan oo laga yaabay in cudurkaas aad soo taabatay cudurkaas haddii aad gacmo keli ah ku taabato aad gaarsiinin wejigaada ayaa waxaa la sheegaa in aad wax dhibaato ah oo ku keeni karin gacmahaada haddii aad saas u soo wasaqaysay oo mise uu soo gaaray waxyaalaha wax ka mid ah cudurkaas ah oo aadna aad taabanin wejigaada ayaa waxaa samayn kartaa gacmahaada ayaa waxaa ku dhaqaysaa oomada mise saabuunta ayaad ku dhaqaysaa si uu jeermiskaas u dilo saabuuntaas ayaa la rabaa inay jeermiskaas ay disho waan ognahay in aan aad u fududaysano haddaan nahay Soomaali waxyaalo qaar oo aad u dhibaato badan qofkas haddaan nahay Soomaali ayaa waxyaalo qaar ayaa waxaan ka dhiganaa waxyaalo aad u fudud tusaale ahaan qof ayaa waxaa dhahaysaa derbigan ayaa wuxuu leeyahay raangi ama rinji ayuu leeyahay ayaa dhahday oo mise tusaale ahaan waad u qortay waxaa dhahday derbigan ayaa la taabanin wuxuu leeyahay rinji ayuu leeyahay daa dhahday qofkii wuxuu leeyahay maya waa been waa in aan soo arka ama inuu qoyaan in kale aan fiiriya uu leeyahay saan u taabana wuu fiirinayaa marka saas looma baahna waa in aad qaadataa awaamirta lagu siinayo waa in aad gacmahaada ka ilaalisaa wejigaada ilaa amar dambe oo ay dowladaha caalamka ay ka soo saarayaan cudurkan daawadiisa oo ay ku cirib tirayaan waan ognahay haddaan Soomaali nahay cudurkan aad baan u yareysanay walaalayaal adoo oo ilaalinayo dhibaatada soo gaari karto walaalahaada kale ka ilaali naftaada wax walba ka ilaali naftaada cudurkan iyo waxyaalo qaarba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh